magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaa ku soo qulqulaya ciidamo ka yimi wadanka Itoobiya kuwaas oo ah ciidankii maamulka Soomaalida ee dhawaan la kala diray sidaan xogta ku helnay magaalada Buuhoodle waxaa ka soo gudbay ciidan iyo hub gurmad u ah huwanta iyo argagixisada ka dagaalamaysa gudaha magaalada Laascaanood ciidanka Liu Police oo muddo dheer ku suntanaa qas iyo qalalaase ayay dhawaan kala dirtay dawladda Itoobiya kadib markii lagu helay cadaynta ah inay ka qayb qaateen dagaalka magaalada Laascaanood halkaas oo ay ciidanka Somaliland maxaabiis Liu Police ah ku qabteen kadibna ay dacwad ka dhan ah u gudbiyeen dawladda Itoobiya ciidanka Liu Police oo aan hadda ka tirsanayn ciidanka Itoobiya ayaa noqday maleeshiyad markii horeba u samaysnaa qaab qabiil waxaana ay hadda wax walba oo ay tabar iyo itaal hayeen ku biiriyeen ciidanka huwanta ee muddada 6 bilood ah ka dagaalamaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sida muuqata dagaalka Laascaanood waa sii durkaya waxaana qayb ka noqday huwan tiro badan oo qaab qabiil u abaabulan ayadoo ay hadda dagaalka Laascaanood ku biireen ciidankii ugu dambeeyay ee Liu Police kuwaas oo maanta ka gudbay magaalada Buuhoodle oo xad la wadaagta Itoobiya dhinaca kalena ciidanka Somaliland oo muddooyinkii dambe kordhiyay difaacyadooda ciidan ayaa ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay ee dagaal waxaana ay ciidanka Somaliland sheegeen inay iska difaaci doonaan weerarada uga imaan doona kooxaha huwanta ah ee kala duwan sida ka muuqata saaxada dagaalka Laascaanood waxaa halkaas ka dhici doona maalmaha nagu soo aadan duulaan xoog leh oo aan waxba la iskula hari doonin ayadoo ay labada ciidan ee ku dagaalamaya gacan ku haynta magaalada Laascaanood qolo walba diyaarsatay wax walba oo ciidan iyo hub ay heli kartay sidoo kale garaadada gobolka Sool oo waayadan ku maqnaa ciidan iyo hub aruursi ayay wararku sheegayaan inay waayeen gurmad xoog leh kadib markii ay wajigii hore ee dagaalka Laascaanood ku fashilmeen ayadoo ay ciidanka Somaliland mar walba ka gacan sareeyeen ciidamada is aruursaday ee huwanta ah sidoo kale dagaalka magaalada Laascaanood oo hadda ka gudbay marxalad caadi ah ayaysan jirin wax nabad raadin ah ayadoo laga quustay wada hadal iyo in xal nabadeed wax lagu raadiyo sidoo kale waan socotay dhowr bilood ayaa dhalin weyday in xiisada Laascaanood ay dhinac u dhacdo ayadoo ay labada ciidan diyaar u yihiin inay ku kala baxaan awoodooda ciidan waxaana muuqata inaan xiisada Laascaanood waqti dhow xal laga gaari doonin dhinaca kalena ciidanka Somaliland ee jooga Gooja Cadde ayaa laga sugayaa maalmaha soo socda inay qaadaan tilaabo military sidoo kale inay ciidanka Liu Police dagaalka Laascaanood ku soo biiraan waxay ka dhigan tahay inaysan ciidanka Somaliland intaas ka badan gacmaha ka laaban doonin kooxaha is aruursaday ee Laascaanood dagaalka ka wada sidoo kale ciidanka Somaliland ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay lagu kordhiyay ciidan cusub iyo saanad military oo dheeraad ah taas oo sii dilaysa rajada ay ku sii dagaalami karaan kooxaha huwanta ah ee surursaday intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool